بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا قحوتيغا داب تي في waa walaalkiina maxamed daacad inaa hadal ku dheeraada ma rabi maanta insha Allah waxaan dul istaagi doonaa labadaas qodob koowaad waxaan ka dhigi doonaa qorshaha cusub lagu soo daray boofista qodobka labaad waxaan ka dhigi doonaa dadka taariikhda nadiifta qaba oo 1992 ilaa hadda qaxootiga joogan rajadooda boofista haduu leeyahay iyo wararka maalmaha magaalada isdhex maray oo la sheegay in 92da la qaadi doona January ama bisha cusub sanadka cusub maxaa ka jiro qodobadaas iyo qodobo kale muhiim ah ayaan dul istaagi doonaa ku soo dhawaada aan ku bilaabo qodobkeena koowaad qorshaha cusub lagu soo daray boofista xiriyaha qaxootiga dhadhaab iyo Kakuma haddii aan dul istaago waxa ka mid ah waa hore waxa jirjitay markii qoyska dhammaan tabanaala camal kaarta du yahay hadduu qayb qof ka mid uu leeyahay kabaanda ama waalidka kabaanda leeyihiin kaarta dhan saameyn ayuu ku yeelin jiray dib u dhac ayuu kaarta dhan boofiskiisa dib ayuu dhici jiray laakiin hadda qorshahaas qorshe cusub ayaa lagu soo kordhiyay qorshihii hore waa la bedelay qorshahan cusub oo maxaa ka mid ah in qofkii kabaanaha le oo kaliya in la reebayo oo kaarta laga reebayo oo laga jarayo qorshahaas ayaa lagu soo daray tusaale ahaan kaarta waxay qofka qoyska waxay yihiin 8 ama 10 tobanaalihii labada waalid aabaha iyo hooyada haddii labadooda ay leeyihiin kaarta waxay saameynaysaa kaliya labadooda wixii aan qaangaarayn ayay saameynaysaa laakiin dadkii qaangaarka ah oo shakhsiyaalka oo kaartooda oo macnaha sida loo yaqaan siindolada oo shakhsiyaalka ah in kiiskooda loo fasaxi doono oo ay bixi doono haddii falaa yihiin haddii caafimaad yihiin in kiiskooda meel alla meeshu maray waa la fasaxayaa laakiin waa hore midaas ma jiri jirin kaarta oo kaliya kaarta dhammaantood uu saameyn jiray hadda qorshahaas waa qorshe aad u fiican oo dhammaan dadkii bulshadii ku noolaayeen qaxootiga oo boofistooda muddo badan ka xirnay aad ayay arrintaas u soo dhaweeyeen aad ayay u riyaaqeen waana qorshe aad u wanaagsan haddiiba qofka kabaanaha le oo kaliya ay saameynayso midda kale waxaa jirtay dhalinyaro qaangaar ah oo hooyadooda iyo aabahooda aan ogeyn kabaana doonan jiren kabaana markay doontaan ay soo toostaan hadhowta marka boofis la gaaro xilliga boofis la gaaro meel fiican marayaan waxaa leeyahay waxaa la jiray hebel kabaana ayuu leeyahay waalidkii fajac iyo lama filaan ayay loo noqonaysay laakiin haddana aad ay u fiican tahay maadaama qofkii oo kabaanaha leh wadii la harayo qorshahaas waa qorshe aad u wanaagsan midaas loo fiican tahay dad badan oo arrinta saameyn ku yeelan lahayd ama saameyn horaan ku yeelatane hadda irid ayaa laga furayaa dadku u dambeeyey ayaana soo marayeen qorshahaas ayaa loo soo sheegay waxaa lahay wixii kabaana leh oo kaliya ayaa lala harayaa wixii aan kabaana lahayn kiiskooda uu soconayaa marka nasiibkooda iyo waqtiga uu soconaya nasiibkooda la taxayraya mooshiye wax la kabaana loo xayiri doono ma lahan qodobka xiga haddii aan u dhaadhaco wararka maalmaha magaalada isla dhex maray oo la haynay dadka 92da waa January waa la qaadi doonaa qorshahaas waa qorshe run ah laakiin balse sida loo yaqaano ama gaalada badan ay sameeyaan waxa ka mid ah ama wadamada sida wadamada Mareykanka wadamada Ingiriiska wadamada qaxootiyada qaato waxay sameeyaan waxa ka mid ah in ay qaadan doonaan sanadka cusub 92 fara badan laakiin 92 oo kaliya lama dhihin laakiin waxaa la nin kasta oo qaxootiga kaartiisa nadiif ah ama kaartooda kabaana alsan lahayn inaan diirada saari doono xataa waxayna dadka kabaanaha leh qayb ka mid ah ay ka naftirkooda wixii kabaana lahayn kiiskooda laga jaraya wixii kale waa la reebaya balse qorshaha waxay dhaheen waan dadajin doonaa sanadka cusub qorshayaal badan ayay hayaan medical hadihin dadkan caafimaadka minority-da handicapka sanad kastana saan ayay u ballan qaadaan laakiin sababta loo ballan qaadaya markasta in dadkaas la qaadan waxa ka mid ah waa dadka u dhibaatay badan dadka protection concern-kooda ama qodobada loo baahan in la qaado loo tixgeliyo waa qodob dadkaas way laakiin first one waxay soo sameeyeen oo kaliya markii la soo xulanayo partnership ayaa lagu soo xulaa partnership kiiska intaas oo kun ayaa la soo xulaya dadka curyaameed qayb laga soo xulnaa dadka 92 qayb laga soo xulnaa qayb soo xulnaa markastana in way ballan qaadan laakiin bal sanadka waxay dhaheen in insha Allah waan turin doonaa sanadii u dambeeyay waxyar ay qaadayeen laakiin sanadkan waxay dhaheen waan turin doonaa tiradii hore oo waxyar aan qaadi jirnay hadda waan dadajinaynaa midda kale waxay war fiican soo saareen in dhammaan dadkii falaay sugaayay oo in badan xayirnaayeen ama caafimaad sugaayay ama GFS sugaayay ama IANS dhammaan in kiisaskooda la boobsin doono la dardargelin doono sida u dhaqsiyaha badan sanadka 2023 waxay ballan qaadeen in sidii hore aan ku soo celin doonay dhaheen laakiin sida hore oo kiisaska shabshab ay ahaan jireen oo kiisas badan la qaadi jiray wixii ayaa dib u soo celiyay waxa kiisas badan oo horaan la rabay in saacadan inay Mareykan joogan ayaa wali bandin ayay dhaheen bandikana sabab badan ayay sheegeen sida Donald Trump iyo COVID-19 iyo waxyaabo kala saameeyay laakiin balse hadda fursad badan ayaa haysanaa sidaas ay ballan qaadeen balse balantooda waan arki doonaa iyo waxyaabaha kala soo kordho
insha allah muuqaalada kale la socda insha